السلام عليكم أصحابتي qiimaha badan ku xiran channelkeena Axmed Warta soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo film soo baxay 1997 kaasoo magaciisu yahay Funny Games fadlan haday tahay daawada markuu ugu horreysay ana soo boqoto subscribe-taada codsi laagtaada waa dhiirigelin comment-gana fikirkaada aan ugu wadaagaysaa aan bilaabano muuqaalka filimku waxa uu ku bilaabanayaa familka kooban 3 qof hooyo aabe iyo wiilkooda hooyada oo lagu magacaabo Anna iyo sidoo kale aabaha oo lagu magacaabo Rifai iyo wiilkooda oo lagu magacaabo asne Georgie si kastaba ha ahaatee waxa ay rabaan inay aadaan meelaha ugu qurxa magaalada ayaga oo socdo si lama filaana kana sheekaysanaya buuqa ka taagan magaalada iyo dhibaatooyin badan oo jiro waxa ay aadeen guri ku yaal meesha kuwaas oo ay degnaayeen dad ay asxaab ahaayeen markii ay bilaabeen inay aadaan aabihi ayaa bilaabay inuu ugu baxo balse gabar lagu magacaabo Jifai ayaa bilaawday in albaabka ka furto markii albaabka soo aadana waxa si lama filaan u soo baxay laba saaxiib oo lagu magacaabo Farid iyo Bell markii ay u maadeen waxa ay bilaabeen in isbarto Anna ayaa barat si kastaba ha ahaatee wiilkii yaraa ee Georgie iyo aabihiis ayaa hadda doonta si wada jir uga shaqeynaya waxa ayna ka shaqeynayaan sidii biyo ay ugu soo gudbi lahayn gudaha wiilkii ayaa weydiiyay aabihiis waa maxay sababta mar walba inuu biyaha ugu dul nool lahay aabihi ayaa ku jawaabay tani ma ahan wax weyn mar dhowna waa ka bixinaa hadda Anna ayaa xaafadda joogta waxayna samaysanaysaa cunto halka wiilkii aabihi ay ku maqan yihiin doonti wiilkii yara ayaa si lama filaan albaabka ku soo galay iyadoo telefoon ku hadlaysa waxa ayna weydiinaysaa aabihi telefoon ay kala hadlaysaa waxa ayna weydiinaysaa meesha uu ku maqan yahay intaas kadib yar lagu magacaabo Peter ayaa u imaaday Anna waxaana uu sheegay inuu u baahan yahay ukun Anna ayaa gudaha u soo gudbisay waxayna ugu fiirisay finjeerka inuu ku jiraan in kale intaas kadib Anna ayaa weydiisay intee ka soo doontay maxaana ka rabtaa balse ukuntii ayaa dhulka uga dhacday waxayna bilaawday inay nadiifiso Peter ayaa u sheegay waxa inay wax caadi yihiin oo uu u baahan yahay kaliya 2 xabo balse Anna ayaa dhahday ma ahan tan wax badan ayaana ku sii doonaa markii uu sameysay waxay bilaawday inay siiso wuxuu bilaabay inuu mahad celiyo xaafadda uu tago Anna oo hooshii iska haysta ayaa qeylo salma filaan ku maqashay banaanka ayaan u soo baxday la wiil ayaa meesha ugu imaatay waxayna weydiisay qeylada waxa ay tahay iyo waxa qeyliyay mid kamid ayaa dhahay makiinadan ayay ahayd balse adigu maxaa ka galay qeylada waa maxay sababta ay weydiinayso Anna ayaa aad u xanaaqday maadaama hadalkiisa ay jaas u fahantay intaas kadib markii ay xanaaqday waxay bilaawday inay doonato waxyaabo ay ku garaafayso markii gudaha u dhaqaaqdana waxay soo heshay bir intaas kadib waxay u sheegtay inay banaanka u baxaan albaabka ayayna u furtay balse way ka dhaga adeegan xoog ayay ku bixirtay balse si lama filaan waxa guriga ku soo galay Georgie iyo aabihi Ralph markii ay imaadeen aabihi ayaa u fahmay inay dhibaato meesha ka jirto saayid ayuu u xanaaqay waxa uu weydiiyay waxa ku kalifay inay gurigiisa u soo duumaraan iyo dhibaatada meesha keentay aabihi ayaa garaafeeyeen waxaana bilaabeen inay dilaan intaas kadib yarkii yaraa ay asnaaqa aad u qeyliyay hooyadii ayuuna ku faktay balse aabihii ayay dhibaateynayaan hooyadii ayaa bilaawday inay aabihii hadda badbaadiso mid kamid ayaa dhahay waa maxay sababta mar ayaan ku dhahay isdaji balse adiga waa ka dhaga adeegtay si kastaba ha ahaatee hooyadii ayaa aad u murugootay sidoo kale Georgie oo aabihiis dhibaato soo gaartay ayaa murugooday hadda gaari meesha ugu yaallay ayay bilaawday inay aado balse aabihii gudaha ayay ku xireen qolka waxa uuna u sheegay inuu meesha ka dhaqaaqi karin labada dhinac ayayna ka istaageen intaas kadib yarkii yara ayaa u sheegay in aabihiis iska cafiyaan cafis ayuuna ka dalbayaa intaas kadib Anna ayaa ka dhaga adeegaysa hadal walba uu sheegayaan balse si lama filaan ay hadda Anna ugu sheegtay in dhibaato lagu hayo gurigooda waxa ayna u sheegaysaa mid kamid ah kuwa ka xamaasha badda aabihii ayaa bilaabay inuu tartiib u baxo Anna ayaana la joogto balse aad ay u dhibaateeyeen waxayna bilaabeen lugta kale inay dhibaato ka gaarsiiyaan maadaama hadda hal lug ay dhibaato ka soo gaartay hooyadii ayaa sidoo kale aad u qeylisay maadaama uu adkaysi weysay dhibaatada loo geysanayo ninkeeda intaas kadib waxa uu sheegay inay iska cafiyaan wax walba oo ku haystaan iyo waxa ay u baahan yihiin uu sheegaan oo sameey doono maxaa dhacay hooyadii ayaa bilaabaysa tan uma adkaysan kar anaga mana rabno insaan aan ku noolaano mid kamid ah labada nin ayaa yiri ma ahan sidaan ku noolaataan balse idinka waa inaad sameysaan waxa idinkaga baahan yahay hooyadii ayaa taas ka dhaga adeegtay waxayna u sheegtay in mid kamid sameey doonin labadii mid kamid ayaa yiri aabihiin waa u badbaadi doonaa balse haddii wax aan rabo ay sameey doontiin iyo haddii kalaba haddii ay ka dhaga adeegtaanna meeshan ayaa hadda ku dili doonaa aabihii ayaa yiri ma awoodaa taas waa maxay sababta adigu u haysato aniga meeshan ayaan ka xamaashaa sidoo kale ilmahayga ayaan wax walba u samaystaa adigana ma aqaan waxa aad ugu haysato waxa aad u baahan tahay kaliya lacag ayaan u malaynayaa hooyadii ayaa xanaaqday markii aabihii saas yiri ma ahan lacag yarkii yaraa ayay waxay bilaabeen hadda inay dhibaateeyaan maadaama aabihii hore ay u dhibaateeyeen
wejiga ayay ka xireen. Sidoo kale labadii mid ka midana waxa uu bilaabay inuu hooyadii celceliyo maadaama wiilkeeda ay ka cabsanayso in la dhibaateeyo. Aabihii ayaa yiri in iska cafiyaan, kaliya asaga ay dhibaateeyaan, wiilkii iyo hooyadiisna iska daayaan. balse aad ayay u dhag adeegeen hadalkii uu soo jeediyay aabihii Ralph oo ah in la iska cafiyo wiilkii hooyadiis iyo asaga ay wax walba ku qabsadaan. balse aad ayay u diideen maadaama ay dhaheen meeshan go'aankeena kaliya ayaa ka soconaya ma ahan adiga inaan talana siiso, wax walba aan sameeyna aan noo sheegtid. hooyadii Anna ayaa loo sheegay in wax walba day looga baahnaa ay ahaayeen been abuur. sidoo kale hadda waxa ay bilaabeen in yarkii ay dhibaateeyaan iyo hooyadoodba. hooyadii ayaa aad u qaylisay, waxa ayna diidaysaa in laga wado cunugeeda. cunugii ayay korgeeyeen. sidoo kale hooyadii ayay bilaabeen in aydan lugaha ka xiraan sida aabii oo kale. hadda guriga ay wax walba ka samaysanayaan. balse arrinta la yaab kale ayaa ah wiilkii yaraa meeshii ay ku xireen inuu ka fagtay habeenimo, waxa uuna bilaabay inuu caawinaad weydiisto dadka agtooda degan. intaas kadib waxa uu hadda bilaabay inuu galo guriga. hadda hooyadii iyo aabihii ay dhibaato ku hayaan, waxa ayna bilaabeen inay qaliin ku sameeyaan, taasoo ay dhibaato u geysanayaan ayna rabaan in xubnaha muhiimka ka dhibaateeyaan. intaas kadib maxaa dhacay? mid kamid ayaa bilaabay inuu ka shakiyo wiilkii. markii uu dhaqaaqana hooyadii ayaa isku dayday inay fakato, waxayna bilaawday sidii meeshaan ugu fakaleed inay falkeeda gasho. balse si lama filaan ayuu ku soo laabtay, wuxuuna bilaabay inuu dhibaateeyo. sidaas darteed si lama filaan ayuu ku aragtay ukumihii hadaaya ay ku caawisay wiilkii, waxayna ogaatay inuu yahay asaga. waxay weydiisay sababta uu dhibaateynayo iyo waxa uu ku haysto, maadaama caawinaad ayaa weydiisay waana ku caawiyay. waa maxay sababta hadda aniga ugu haysato? balse wiilkii yaraa ee asagana falkeeda galay sidii uu ku badbaadin lahaa hooyadiis iyo aabihiis, wuxuu si lama filaan u soo galay qolkii, wuxuuna bilaabay qori aabihii lahaa oo meesha yaal inuu soo qaato. markii uu soo qaatana asaga oo dhibaatay rabo oo meesha qorigii sida uu ku dhibaatay lahaa falkeeda galaya, waxaa si lama filaan gadaashiisa uga soo baxay mid kamid ah labadii tuugo kuwaasoo dhibaateynaya hooyadiis iyo aabihiis. toosh ayuuna ku ifiyay. markii nalka uu daaray waxa uu arkay wiilkii oo qori haysto. uu ku qoslay, waxa uuna bilaabay inuu ka qaado qorigii ayuu ka qaaday. waxa uuna bilaabay inuu keeno meeshii hooyadii iyo aabihii ay joogeen. markii uu meeshii oo keenana hooyadii ayuu ku fagtay wiilkii, waxuuna u sheegay inay dhibaatay rabaan. qorigii ayuu soo qaaday, wuxuuna u dhiibay yarkii kale. waxa uu bilaabay qoriga inuu kor u taago oo u sheegay qoftii dhibaato bilowdo ama isku daydo inay meeshan dhibaato keento inuu qoriga ku dhibaatay doono. guriga ay wax walba ka samaysanayaan, cunto ayayna iska samaysanayaan. hadda mid kamid ah waxa uu ilaalinayaa hooyadii iyo wiilkii iyo aabihiis, midka kalena waxa uu rabaa inuu dhibaateeyo oo qoriga ayuu ku jeesjeesayaa, wuxuuna u sheegayaa wax walba uu rabo haddii uu samaysmi waayaan inuu dhibaatay doono kulligood. intaas kadib maxaa dhacay? Anna ayaa isku dayaysa inay meesha ka fakato, balse nasiixo ma aysan ka fakan oo ku guul dareysatay. waxa ay hadda sameynaysaa sidii meeshan ugu fakaleed falkeeda inay samayso. waxay u tagtay Ralph oo ninkeeda ahaa, waxayna u sheegtay cunugeeda in dhibaato lagu haayo, aadna ay u cabsanayso. balse asaga ayaa yiri isdeji, waxaan waa caadi. si kastaba ha ahaatee aabihii Ralph ayaa go'aan ku gaaray inay go'aan degdeg ah keenaan sidii meeshan ugu fakal lahaayeen. aabihii ayaa u sheegay in meeshan ay dhibaato soo gaari doonto cunugiisa haddii maanta aysan ka barnaamijin ama ay qorshe keenin. waxa uu bilaabay inuu xarigii ka badbaadiyo. xarigii ayuuna ka furay, waxaana uu sheegay inay go'aan degdeg ah qaadato, wax walba hadda ay rabtana ay samayso. Anna ayaa aad u xanaaqsan, aad ayayna hadda u cabsanaysaa, waxaana ka muuqda daal fara badan iyo dhibaatooyin. si degdeg ah ayay hadda kusoo labisatay, waxa ayna rabtaa inay booliiska wargeliso. hadda Anna oo xarigii laga furay ayaa isku dayaysa ninkeeda Ralph inay badbaadsato, balse aad ayay u cabsanaysaa maadaama uu dhiig baxayo asaga. labada ninna way ka maqan yihiin hadda, balse way imaan doonaan. waxa ay bilaawday sidii ay ku badbaadin lahayd inay falkeeda gasho, balse waxa uu sheegtay inuu isdejiyo, waxaana ay tahay waxay ka bixi doonaan. wuu adkaysi weysay. asaga ayaa u sheegay inuu booliiska wacayo oona weydiin doono caawinaad iyo dhibaato haysato, balse nasiib darro wadna hada samaysay jirin. intaas kadib asagoo dhiig baxaya waxa uu adkaysi weysay Anna, waxayna bilaawday inay banaanka u baxdo ee dadka wadada maraya caawinaad weydiisato. hal gaar ayay aragtay nasiib xumo oo ka dhaqaaqay. markii ay soo laabatay waxaa lama filaan ku noqotay in labada nin imaadeen. Anna ayay qabteen, waxayna bilaabeen inay dhibaateeyaan. xarig ayay ku xireen, qolka ayayna geeyeen. sidaas darteed waxa ay bilaabeen ama go'aan ay ku gaareen inay nolosheeda meeshan ku soo dhameeyaan maadaama uu big wayn wax meesha ka socdo. xarig ayay qoorta ugu xireen. intaas kadib ninkii ayaa go'aan ku gaaray una sheegay inay tahay noloshaada meeshan inay ku dhamaato, aan nasiib u lahayn sii noolaatid. Anna ayaa aad u cabsanaysa, waxa ayna ku duceysanaysaa inay dhibaato maanta ka badbaado maadaama ay murugaysan tahay. si kastaba ha ahaatee labadii burcadka ahaa ayaa meeshaas kula wareegeen hanti walba oo lahay aabihii Ralph iyo sidoo kale xaaskiisii meesha ayay kula wareegeen. wiilkiisina waa ay dhibaateeyeen. sidoo kale hadda waxa ay wataan doontiisii kaas oo uu xamaali jiray magaalada. filimkan halkaas ayuu ku dhamaado. kuma santiin daawashadiina.